Assalaamu calaykum. Casharkan waxaan ku qaadanaynaa waxa la yidhaahdo ID iyo class. Marka ID iyo class waxay naga saacidayaan marka si isaska joogno inaan ka maarano HTML tagiska inaan soo wacno. Sidoo kale class iyo ID farqi u dhexeeyo ayaan isla fiirinaynaa. Marka hore waxaan qoranaynaa paragraph oo Muqdisho kaleeto. Marka waxaan badsanaynaa ilaa iyo 6 xabaa ka dhiganaynaa marka midkan waxaan ka dhiganaynaa Hargeysa kaleeto. midkan kalena waxaan ka dhiganaynaa Hargeysa. midkan sidoo kale waxaan ka dhiganaynaa Hargeysa. marka waxaan rabnaa marka koowaad horta inaan ogaati waaye class iyo maxaa la tole iyo ID waxaa u isticmaalaynaa marka hadda aan rabno inaan kuwaan install gareysano oo si iska tagno waa inaan sheegnaa tagga magaciisa si aan u install gareysano. marka class iyo ID waxaa kaga maarmi karnaa inaan soo sheegno magaca tagga aan rabno inaan install gareyn inaan magaciisa soo qaadano. marka bedelkeeda waxaan sameynaynaa tagga waxaa u sameynaynaa class ama ID u sameynaynaa waa hadhow markaa si iska tagno classkii ID-gaas wax ka bedelnaynaa markaas wuxuu wax ka bedelmaa tagga markaas classkaas wato ama ID-gaas wato. marka tusaale hadda waxaan rabnaa Hargeysa oo kaleeto in kalarkeeda guduud noqdo. marka hadda haddii aan idhaahno bio kale haddii aan idhaahno waan dhahno color red waa safe dhahno wixii paragraph ahayo dhan ayaa kalarkooda bedelmaya. marka anaga waxaan rabnaa wixii Hargeysa bis inaan kalar ka bedelno waa aan ka dhigno inuu ahaado guduud. marka waxaa naga saacidayo classka paragraphkan waxaa siinayna ama waxaan rabnaa kuwa Hargeysa bis inaan classka siino. classkan hejo kale kasoo qaad oo Hargeysa midkan kalena class aan siinaynaa wixii qoraal Hargeysa dhan buu waxaan siinaynaa class oo heja. hadda markaa save gareyna marka oo si iska tegina marka waxaan sameynaynaa wixii h ahayo dhan inaan wax ka bedelno. markii tagga wax ka bedelina markaa tagga soo qaadinayna magaciisa oo si iska markaa joogno tagga magaciisa aad u qorin. laakiin hadda waa class tag ma ah. marka waxaan sameynaynaa dood ayaa laga hormarinayaa classka danna magaca classka sheegaysa. marka waxaan rabnaa classka inuu ahaado guduud inuu ahaado. hadda markaa save dhahna marka wixii Hargeysa ahay kalarkooda wuxuu noqday guduud uu noqday wixii Hargeysa ahay dhan maxaa yeelay waxay ka wada siman yihiin classkan class wada sameynay. marka halkii aan paragraph ka soo qaadanayno waxaan soo qaadanay classka magaciisa. classkan waxaa dhahna waxaa ka hormarinaysa dod oo dodtaas waxay caddeynaysaa in this is class inuu yahay. marka sidoo kale waxaan sameynaynaa ID. marka ID sidoo kale waa sida class oo kale magaca qoraysa ID aa leedahay danna ID-gaas wuxuu yahay m oo kale kasoo qaad. marka ID-gu wuxuu class kaga duwan yahay waxay tahay classka markaa qorayna dooda isticmaalayna ka bacdida classka magaciisa. laakiin ID-ga markii la qorayo waxaa isticmaalaysaa hashtag aa isticmaalaysaa dan ID-ga magaciisa m ahay isagana kalarkiisa waxaa ka dhiganaynaa blue kaleeto safe dhahna. marka ID-gu ugu horreeyay midkan bes ID siine wuxuu noqday blue sii uu noqday. marka hadda classka iyo ID aa isticmaalayna annagoon isticmaalayna tagga magaciisa anagoo soo qaadanaynin tagga kaliya waxaa siinaynaa class u sameynaynaa ama ID u sameynaynaa. dan markaa si iska nimaano waa ka maaranaa inaan taggaas magaciisa aan soo sheegno. marka labadooda farqiga u dhexeeya waxay tahay classka waxaa u isticmaali kartaa elementiyo badan aa classka u isticmaali kartaa si aa u install gareysato. laakiinse ID-ga waxaa u isticmaalaysaa kaliya hal element bis ID-ga magaciisa. hadda ID-gan oo m ah midkaana u isticmaashay mid kale inaa u isticmaashay malahan. hadda wuu kuu shaqeynaya haddii mid kale ID siisid oo isla same name ah aa siisid oo m ah tiraahdi wuu shaqeynayaa waa kana hadda midka labaadna wuxuu noqday Muqdishada labaad waxay noqotay blue. laakiinse invalid waaye oo qalad waaye website-kaada hadhow waxaa ku imaan karo errors badan oo hadda browserka uu kaa qaadanaya. laakiin ID-ga waxaa loogu talagalay inuu unique u ahaado hal mid inuu ahaado bis oo hal element la siiyo oo mid kale aanan la siinin. marka haddii aan rabno marka Muqdisho dhan inaan wax ka bedelno saddexda ama labada Muqdisho ku jirto inaan wax ka bedelno markaan rabno waxaa sameynaysaa class u sameynaysaa. classkan wuxuu noqonayaa mo oo kale Muqdishadan kalena waxaan siinaynaa class mo Muqdishadan kalena waxaan siinaynaa class mo. hadda safe dhahna marka mo aa u imaanaynaa marka mo aa qoranaynaa ID waaye
ma waa leenahay then kalarkiisa waxaa leenahay waa blue kaasee ku dhahna marka uu nimaano marka cilada waxaa waaye iyadoo ay tahay class iyadoo ay tahay waxaa isticmaalnay hashtag oo id loogu talagalay marka class markay tahay dad waxaa isticmaalaysaa dad safe hadda dhahnay hadda oo inoo shaqeeya marka midda kale waxaa dhahnay id waa inuu unique u ahaadaa oo hal element haddaa idgaas magaciisa siisid mid kale oo inaan siinin classka hal classa waxaa wada sii kartaa elementiyo badan wax ugu bedelan kartaa marka casharkeena intaanu ku egyahay wassalaamu calaykum